wiil dhalinyaro ah oo youtuber ah oo aan aqoon diineed lahayn aqoon adduunyo aan lahayn asaga laftiisu fasaadsan waa youtuber xoolo raadisa ujeedadiisa ugu weyn ay tahay in dad ku raaco oo waxoogaa adduunyo aad ka hesho ujeedadiisu dhan ay sidaas tahay ayaa ummadii boqolaal kun oo ummadda ka midaba buu hogaaminaya warkiisa soconaya asagaasaa la raacsan yahay hadda ogow shakhsiyadiisa markaad fiiriso xataa waxar lugla lagu aamini maayo waxar lugla intuu foofiyo ma soo hin karo dullinimadiisa isugu yaal haddana markaad fiiriso khalaa'iq baa ku xidhan khalaa'iq buu kiciyaa qabaa'ishuu isku diraa ummad buu hogaamiyaa waa la dhegaystaa amarkiisaa socda masaalixda guud buu ka hadlaa mar diin buu geli mar muxuu ahay adduunyuu geli mar siyaasad buu geli mar qadaa buu geli qadayaadkii nabigu hadda ka warramayay sal allahu alayhi wasallam buu galaya isaga markaas shakhsiyadiisana waa bini aadamkii kii ugu xumaa waay soo waqtigeedii ma joogno marka siyaasad keliya maaha markaad u fiirsato soomaalida channelladooda youtube-ka ama facebooka markaad u fiiriso pagekooda markaad fiiriso kuwa ugu badan oo dadka ugu badan ay raacsan yihiin waa laba qolo ka sheekaysa ciyaaraha iyo madadaalada weliba waa kuwa ugu dad badan soomada garan iyo qolyaha kale oo kuwa afxumada iyo dhaqan xumada iyo dadka isku dirkiisa iyo kala dilkiisa ka shaqeeya labada qola ugu badan social mediaha dadka ay Soomaalidu dhageysato ama ay raacsan tahay ama ay warkooda dhageystaan soomaa marka ar-rajulu safih at-tafih yatakallamu fi amri al-'amma ma antan joogna siyaasad kaliya fiirina waxaad arkaysaa mid lagu leeyahay waa khabiir waa aqoon-yahan wuxuu taxliiliyaa oo falanqeeyaa arrimaha siyaasadda arrimaha dhaqaalaha markaad isaga u fiirsatana qiimo weyn kuma fadhiyo hadduu xoolo ahaan lahaa suuqa la geyn lahaana lama gateenba haddana maca dalika waxaa la leeyahay waa khabiir aqoon-yahan oo khatar ah oo muxuu ahay rugcadaa baa lagu leeyahay markaasaa waxaa la weydiinayaa qadaayaadkii ugu halisanaayo ummaddanu lahayd buu taxliilinaya bal u fiirsada waxaa laga yaabaa ninka isaga ah reerkiisii islaantiisii iyo carruurtiisii waa dayacan yihiin carruurtiisii lume waxaa laga yaabaa qurbuhu kaga yimid qurbaha kolay midba midu cararahay iyo qurbaha kaga yimid islaantiisii dhaqan iyo diin male ama waa horu dayacay uu ka yimid nin maamuli kari waaye ilaahan idinku dhaariyay islaan iyo 5 ilmood ay dhashay ayaa intuu yimaado kursiga fuulaya markaasuu wasiir noqonaya ama madaxweyne noqonaya ama intuu soo fadhiisto waxa la leeyahay waa khabiir wuxuu taxliiliyaa qadayaadka istiraatiijiga ah war maxaa taxliilin habaarku ugu dhacay ilmahaaga aaway oo aaway islaantaadii 5 ruux baad ka adkaan weyn markaasaad ummadda soo hor fadhiisataad qadayaadkeeda caamka ka hadlaysa waxaas way waxa marka inuu hogaaminaya nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam as-sadiq al-masduq uu ka sii waramayo kaliya rag kaliya ma aha dumar iyo ragba noocaas noqon waxaynu marka u baahanahay inaynu muraajacayno dib ugu noqono marka nabigu sallallahu alayhi wasallam qadayaadkan inooga sii waramayo waa xilli waxani aysan imaanin way laakiin allah tabaaraka wa ta'ala ba ummadan in la sii wargeliyo ku talagalay si aynu xilliga ay timaado inaga oo dhaga xidhan oo waxba la soconin ayna godka ugu dhicino warka inagoo sii hayna talagalkeedana le waxyaalahan inay yimaadaan kadibna aynu ka tabaabushaynoo iska ilaalino saan uga badbaadi lahayn aynu ka shaqeyno insha Allah ta'ala see looga badbaadi karaa asbaab bay leedahay jidad bay leedahay qaab bay sharcadu ka dajisay laakiin wax way waqtigu intaas kama badna waqtigii baa dhamaaday kelimada loogu talagalay maanta muslimiinta qadaayaadkeeda guud haday diin tahay iyo haday adduunyo tahay iyo haday siyaasad tahay iyo haday dhaqaale tahay dadka hogaamiye intooda badani waa ruwaybidadii nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam waxay u baahan tahay marka ummadda sidii loo badbaadin lahaa
تشيكيدا يقرشه هذه إلا قالوا بإذن الله تعالى. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير والسلام عليكم.